السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أد نقد هنيسان وعاتي ميديا يعين شو فضلا هدي أد نلجوكتنا سيشر قرية أو أصحابتي نوقيبي وقولك كلا جية هدي كلنا فضلا نقصو بيرة أو سبسكرايب كي لايك كي كومنت كي هنجه المعنيين waxaan rabaa si degdeg ah inaan u dul maro waxaan ogeyn waayahanba intii muddo sanada ama ka badanba ama maalmihii ugu dambeeyay in mucaaradka fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Jazeera ay shirar isdaba jooga ay ku lahaayeen ayagoo ka andacoonaya doorashada boobka ah ee ka bilaabatay gobolada qaar gaar ahaan iyo magaalada Muqdisho waxaa soo baxay ilaa hadeertan golaha shacabka dhowr iyo 20 xubnood oo golaha shacabka ah la doortay iyadoon ognahay in intooda ugu badan boqolkiiba 90 farmaajo soo saartay inta kalena maarta sandareerta loo kala tuuray nimanka la yiraahdo mucaaradka marka tusaale ahaan u soo qaadano meesha la yiraahdo galmudug oo kale qorqor wuxuu soo doortay markii laga reebay 8 xubnood oo aqalka sare markii laga reebo wuxuu soo saartay 5 xubnood oo golaha shacabka ayuu soo doortay inta ugu badanna waxa uu soo baxday farmaajo dad uu wato tusaale ahaan Yaasiin Fari oo maarta eedama loo haysto sidaas la mid ah nimanka la yiraahdo lafta galeen oo 12 xubnood soo doortay 9 xubnood oo kamid ah farmaajo ayaa la tagay halka 2 xubnood oo kale ay maaragta uu kala siiyay Sheekh Shariif iyo xubin ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa halka markay joogto nimankii odayaasha ah in muddada ay maaragta ku eedeynaya doorashada ka sheeganay in ayagii maaragta ay u kala dhuumanayaan farmaajo gaar ahaan xasan ninka la yiraahdo xasan cali khayre inuu ku soo daahay Turkiga asagoo raba diidan inuu ka soo qayb galo fadhiyada golaha shacabka sababtoo ah haduu yimaado magaalada wuxuu ku qasbanaanaya inuu magaaladan uu golaha shacabka uu maaragta uu nimanka la yiraahdo magaaladan haduu yimaado wuxuu ku qasban yahay inuu midowga musharaxiinta shirarkooda ka qayb galo asaguna mana doonayo wuxuu maaragta uu niyada ku hayaa inuu la kulmo rag maaragta Turkiga soo jooga maamul goboleedyada rag qaarkood madaxda ka ay magaaladan maaragta yimid sida qorqor oo hadda u sii socda iyo ninka lafta gareeno markuu Sacuudiga umrada uu sheegay markuu ka yimaado inuu halka u gudbo si uu maaragta wuxuuna uga helo sidaas la mid ah rag kale waxa jira ayaga midowga musharaxiinta kamid ah ee ayagana maaragta farmaajo hoos kala socda ama maaragta xaga daacinaya dadaalka ay wadaan nimankaas ee maaragta ay ku doonayaan maaragta doorashada in lagu hagaajiyo midowga musharaxiinta waxa la sugaya shalay ilaa ay xalay ilaa ay saaka gelinkii hore oo maanta oo bishu tahay 5 bisha December in maaragta ay wax soo saaraan war murtiyeediyo inuu ka soo baxaan hasaatay way ku guul dareysteen oo way isku khilaafeen waxyaalaha ay soo saar laayeen walaalayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkeen update-ka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.